kulanti iyo daawasho wanaagsan halkani waa shabakada wararka ee Ceelhur online qodobada wararkana waxa ugu waaweyn Somaliland oo si kulul uga hadashay hadal maalinkii shalay ah ka soo yeeray dawladda federaalka ee Soomaaliya 43 qof oo Soomaali ah oo lagu xiray xaafadda Islii ee magaalada Nairobi gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Galmudug oo kulan la yeeshay saraakiisha AMISOM ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabelle oo shaaciyay xilliga dhabta ah oo ay dhacayso doorashada guud ee maamulkaasi Hirshabelle qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawo doontaan u diyaar garooba gordhow markale kulanti wanaagsan waa habeenimo khamiisa ay taariikhdu ku beegan tahay 23 bisha koowaad ee January sanadka 2020 fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelkan saar subscribe sina share garay si ay u gaaraan asxaabtaada kale haatan warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay maamulka Somaliland ayaa waxay si kulul uga hadleen hadal maalinkii shalay ah ka soo yeeray dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ay ku sheegtay inay aad uga xun tahay iscaasilaada Cornel Gulwade kaasi oo kamid ahaa guddiga dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Somaliland iyadoo maalinkii shalay ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si cad u sheegtay inuu iscaasilay General Gulwade oo kamid ahaa guddiga dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Somaliland dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay General Gulwade ku eedeysay inaysan daacad ka ahayn dhexdhexaadnimada Soomaaliya iyo Somaliland kadib markii uu sheegay inay tahay mid dhab ah duqaymihii laga geystay deegaanada Somaliland hadalkaasi ayaa waxa ka jawaabay xukuumadda Somaliland iyadoona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeysay inaysan daacad ka ahayn wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Somaliland Salmaan Yuusuf Cali Kore ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan daacad ka ahayn wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waa kan asagoo arrimahaasi ka waramaya waxay ila noqotay inaan kelmad ka idhaahdo ku haboon in kamid ah generaaladii hore Soomaaliya marna taliyaha ciidanka guulwadayaasha Soomaaliya ahaan jiray marna taliyaha ciidanka biliska oo hadallo aan laaqi ku ahayn ama nin mas'uuli inuu yiraahdo aan ku haboonay oo ah in garaacistii diyaaradaha iyo dagaalada ummadda reer Somaliland lagu hayay inay sax ahaayeen isaga la yaabi mayno isaga lama yaabani waayaha iyo waqtigaa siiyey hadduu maalintaa mas'uulka ahaana sababta keentay weeye in markay dadkaas oo kale taliyaan in ummadii wada joog jirtay ummadda Soomaaliya la isku oran jiray inay maanta firtay noqoto oo aynu aragno maxsuulkeedii meesha uu ku dambeeyay waxa keenaya marka dadkaas oo kale ay taliyaan ama awoodaha noocaas oo kale ay gaadhaan waxaase ka sii runtii u eg caqligiisu inaanu ka duwanayn kuwii hore madaxweynaha u magacaabay inuu ku jiro guddiga wada hadal siinta ee Somaliland iyo Soomaaliya waxaa ka muuqata inuu xambaarsan yahay filosofigii hore ee aanay ummadii af Soomaaliya ku hadli jirtay mahadin meel kasto ay joogto burburkeedii iyo baabi'eedii iyo xasuuqeedii iyo badlayntu inta iyo refugeeska inta ugu dhimatayna amaanta la kala guri layahay wali daafaha dunida iyo meydkoodii badana meydkoodu sabaynayo meel kastana tacadiga laga hayo ilaa iyo from South Africa to New Zealand to Australia naqiiqdoodu ay maalin kasta ka baxayso dadkii mas'uuliyadda lahaa inuu maanta qosaaw hadlay haddana uu u magacaabo inay wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ka mid noqdaan aad iyo aad baan uga xumahay waxaana ka muuqata inuusan serious ka ahayn usan marnaba doonin in xal waara laga gaaro labada dawladood ee Soomaaliya iyo Somaliland
waan isleeyahay waxba kama duwanaa wixii hore aanu arki jirnay aad iyo aad baana u cambaarayna in hadallada noocaasi ay ka soo baxaan dad darajooyinka noocaasa gaadhay ama cid mar labaad ku dayday inuu ka mid noqdo dadka hadallada samaynaya ummadda reer Somaliland-na aad iyo aad baan uga tacsideynaya hadalkaa ka soo baxay ninka ummadda reer Somaliland waxaa leeyahay waxaynu nahay dal qarana oo madax bannaan oo buuxiyey shuruudihii dal lahaan jiray sameeyey dhammaan wixii aynu ku taagnayna cagaheenna ayaynu ku taaganahay qof iyo cid iyo qof gaaraynu marti uga nahay in dalkeennu hagaago iyo inaynu jiro iyo inaynu joogno iyo inaynu istifaacano iyo inaynu dal noqono cidaynu u daba fadhinaa ma jirto magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa lagu xiray 43 qof oo Soomaali ah kuwaasi oo haatan ku xiran xabsi ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay howlgallo ka wadeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxayna howlgalladaasi ku xireen 43 qof oo Soomaali ah kuwaasi oo hadda ku jira xabsi weyn ee ku yaala magaalada Nairobi dadkan la xiray ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin mucallimiin iyo arday Soomaali ah kuwaas oo ciidamada booliska aysan wali cadaynin sababaha loo xiray ciidamada Kenya ayaa dhawaan magaalada Nairobi ka sameeyay howlgallo dhanka dadka looga shakisan yahay in ay ka mid yihiin al-shabaab hase yeeshee guddiga amniga ee xaafadda Islii ayaa sheegay inay ka murugaysan yihiin ardada iyo macallimiinta loo beegsaday sababo la xiriira inay si sharci darro ah ku joogaan gudaha dalka Kenya gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kulankaasi oo looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa amniga magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan xarumaha ay ka dhacayso doorashada maamulka Galmudug gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxa uu kulan kula qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM saraakiisha ciidamada AMISOM oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay gudoomiyaha kala hadleen sidii loo xoojin lahaa amniga magaalada gaar ahaan amniga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug kulankan maanta uu la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa waxa uu ku su'aadayaa xilli uu jiro khilaaf ka dhashay howlaha doorashooyinka ee ka socda magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu shaaciyay xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xilliga ay bilaabanayso xulista xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka maamulka Hirshabelle iyo doorashada hoggaanka guud ee Hirshabelle madaxweyne Waare oo magaalada Beledweyne kulan kula qaatay safiirka Sweden ee Soomaaliya ayaa waxa uu kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka waxa uuna sheegay in xulista xildhibaanada maamulka Hirshabelle ay bilaabanayso bisha December ee dabayaaqada sanadkan sidoo kalena ay doorashada guud ee maamulka Hirshabelle ay dhacayso bisha October ee sanadkan sidoo kale madaxweyne Waare ayaa waxa uu sheegay in doorashada maamulka Hirshabelle ay ku dhici doonto waqtigeeda isla markaana maamulka Hirshabelle uu diyaar garow ugu jiro sida ay u dhici lahayd doorashadaasi waxa maanta sharaf noo ah waan ku faraxsanahay inuu noo yimid wafdi uu hogaaminayo safiirka ee dawladda Sweden Stefan Tilander iyo tiimka la socda ku-xigeenkiisa iyo hay'adda siida gabadha madaxda ka ah iyo tiim kale oo ka socda safaaradda waxaan runtii intii halkan ay joogeen waxay la kulmeen bulshada rayidka waxay la kulmeen dhalinyarada waxay la kulmeen haweenka dabcan waxaan ku soo gabagabeynay kulankii anagu aan yeelanay oo aan uga wada hadlaynay arrimo guud oo mashaariicda Hirshabelle ee Sweden ka wado ha ahaadaan kuwa ayagu tooska ay u wadaan iyo kuwa ay hay'adaha ay soo marsiyaan
waxaa kaloo runtii aan ka hadalnay doorka muxuu ahaay ay uga jiraan xagga amniga gaar ahaan baahida aan u qabno iyo abaabulka aan ugu jirno in jidadka la furo waxaan kaloo ka hadalnay xagga bini'aadanimada mashaariicda bini'aadanimada gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha iyo sidii xal waara looga gaari lahaa waxaan dood dheer aan ka yeelanay xaaladda guud oo wadanka oo siyaasadeed gaar ahaan doorashooyinka siiba gaar ahaan muxuu ahay doorashada Hirshabeelle waxaan u sheegnay oo aan u cadeynay in Hirshabeelle sida hadda ka hor aan ku soo saarnay warmurtiyeed mowqifkeedu uu yahay in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigooda doorashada baarlamaanka Hirshabeelle haddii Ilaahay idmo waxay dhici doontaa bisha September si baarlamaanka cusub oo Hirshabeelle loo dhaariyo sida dastuurku qababa bisha October waxaa ka dhiman marka doorashadaas waxaa ka dhiman 9 bilood 8 bilood intii u dhaxaysa waxaan ka jari doonaa haddii Ilaahay idmo dhowr bilood bil ama 2 bil ama intii kulba hadba ay nagu qaadato oo aan ugu diyaar garoobayno soo xilida baarlamaanka cusub Hirshabeelle sida dastuurkeedu qabo iyo dastuurka federaalka oo qabo doorashadaas waxay u dhici doontaa sidii loogu talagalay waxaan bilaabi doonaa markii doorashadaas ay soo dhawaato u diyaar garowgeeda xagga abaabulka xagga odayaasha xagga xildhibaanada cusub waxaan rajaynaynaa in baarlamaanka kaleeto uu bedeli doono baarlamaankan sida jadwalku yahay bisha October waxay ballan qaadeen inay qaybtooda ka qaadan doonaan saacidaad ha ahaato tala ha ahaato kormeerid ha ahaato inay qaybtooda ka qaadan doonaan aadaan runtii muxuu ahay anigu faraxsanahay safarkooda waxaan magaalada aan mataqaanaa ku soo aragnay muxuu ahay waxaan ku soo aragnay magaalada saameyntii fatahaadu ay ku yeelatay soo kabashadii mashaariicda hadda ka socota oo mataqaanaa lagu la tacaalayo in dadku caadi ay ku soo noqdaan ayada naftigeedana waxay ballan qaadeen inay qayb ka qaataan dib u dhiska magaalada gaar ahaan dhinaca biyaha dhinaca caafimaadka iyo dhinaca xal in loogu helo fatahaadda aad uma guud ahaan intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa warkii Ceelihur online fadlan daawada haddii aad channelkan ku cusub tahay saar subscribe gambaleelka furo siina share garay intayna warkan war lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal amaan Allah